maanta waa maalintii sagaalaad ee bisha Muharram, birrina waa maalintii 10aad. maanta iyo birri waxaan kula soo wadaaga ama aan kuu soo gudbinaa laba duco aad u qiimo badan, maadaama sanadkii cusub oo inoo bilaawday 1444 inoo bilaawday. waxaan rabaa duco aad u qiimo badan oo ku bilaabatid sanadka cusub inaan kula wadaago. ducadan xifdi waa duco hal kelima ka kooban, laakiin haddaa xifdisid oo ilaahay ku aqbalo waad liibaantay adduun iyo aakhiraba. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. walaalahan ilaahay dartiisu jeclahay meel walba adduunka aad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. saan hore idinku sheegay, maanta iyo berri waxaan idinla wadaagi doonaa laba duco aad u qiimo badan. maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago, maadaama maalintii sagaalaad ay tahay, dad badi ay suuman yihiin, birrina maalintii 10aad dad qaarkooda ay suuman yihiin. waxaan rabaa marka maanta inaan kula wadaago duco aad u qiimo badan oo hadduu ilaahay kuu aqbalo aad ku liibaanaysid adduun iyo aakharo. ducadan waxaa inoo wariyey cabdullaahi ibn camr ibn alcaas radia allahu canhuma, asigii aabiisba saxaabi ahaayeen, ilaahay ha ka raali noqdo. waxayna ku jirtaa saxiix aljaamic ayay ku jirtaa, sheekh albaanine saxiix ayuu ka dhigay, kitaabka tabarine waa ka helaysaa. walaalayaal, nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, ina aliimaana layakhlaqu fii jawfi axadikum kamaa yakhlaqu athawb fas'alu allaha tacaala an yujadida aliimaana fii quluubikum. nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkan wuxuu ku leeyahay, iimaanka wuu duqoobaa oo waa baaliyoobaa siduu u baaliyoobo dharka qofka uu xiran yahay. ibni aadamka dharka uu xiran yahay, qamiiskan waxaa laga yaabaa 2 sano kadib inaan xiranin, laana wuu duqoobaa, asadhana si kaluu noqonaa. inaan iska bedela waa ku qasbanaana. marka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu rabaa inuu noo sheego marka iimaankan ibni aadamka meeshiisa ma joogaayo. maalina koruu u kacaa markaa camal wanaagsan samaysid, maalina hoosuu u dhacaa markaa camal xun samaysid. sidaa darteed ilaahay markas weydiiso inuu kuu cusboonaysiiyo. iimaanka inuu duqoobo ama baaliyoobo ama uu daciifo maxaa keeno? culummadeena ayaa naaga jawaabaysay, si fiican u dhageyso. waxay dhaheen sababta alfutuur fi lcibaadaat waxaa waaye 1 irtikaabi almacaasi, qofka dembi inuu galo ama dembiga uu ku socdo. kulligeennane maalin walba dembiyaan galnaa. waxaa kaloo ka mid ah inqimaas annafs في بعض شهواتها، نفط إن الحرقة لو سيدايو دنبي إني كشو ماني والبا نفتان ميلي ربطا إني فيرسو، هذا اللي ربطا إني كو هذا شو وحي ربطا إني شيكتو. هذا حرقة أديسيد وأبقبان ويسو واتكشن لاينيسا. محا سبب؟ لأن إيمانك هاي كحينيسايو دولك هيكينيسا. إيمانك قفك هدو ضعيفان قيمة بدن ما يلانايو oo khayr kasta dii loo sheegana ma galaayo, xumaan kasta dii laaga digane kama istaagayo. ilaahay weydiiso inuu kuu cusboonaysiiyana waxaa laga wadaa ilaahay inuu kugu arsaaqo camal wanaagsan. camalka wanaagsan, camal saalix markaa samaysid, iimaankaaga koro u kacaa. soonka tatawuca, soonka ammaanta ah suumantihiidoo kale waa camal wanaagsan, iimaankaaga ayuu kor u qaadaa. iimaanka ayuu kor u qaadaa. haddii maantoo kale fiiri, maantoo kale markaa suuman tihid oo qur-aan aad akhrisatid oo ducoysatid, iyo shalay haddaadan soonneen oodan qur-aan akhrisanin, wallaahi isku meel ma joogtid, isku sina macaanka uma dareemaysid. marka ilaahay weydiisa iimaanka inuu kuu cusboonaysiiyo, macnihiisa waxaa waaye ilaahay inuu kugu arsaaqo camal wanaagsan. iimaanka wax la siibayo la gelinayo ma ahan, waa camal oo qofka samaynayo ilaahayna kor ugu qaadayo markuu ilaahay kugu arsaaqa kadib. ama haddii kale camal xun aa samaysid oo iimaanka hoos ugu dhacayo. acmaasha iimaanka kor u qaada waxaa ka mid ah soonka amaanta suumantihiidoo kalaa ka mid ah, soonka sunnada inaa badasidoo kalaa ka mid ah. markastaa soontid waa markastaa ilaahay u dhowaanaysid. soonka wuxuu ka mid yahay acmaasha ilaahay lagu dhowaado. waxaa kaloo ka mid ah sadaqada la bixinayo, waa waxa ugu fiican oo qofka la siiyo waaye. qofka haddii inaa siisid, asiga u weynana u dirtid, sadaqa inaa siisid, waa waxyaabaha acmaasha wanaagsan oo iimaanka kor u qaadayso. waxaa kaloo ka mid ah tan saddexaad ah dadka faqiiriinta ama
ama dadka muxtaajiinta wax u baahan inaad caawisid. sidee ku caawin kartaa? haddaa hadal ku caawin kartid, haddaa sadaqa ku caawin kartid, haddaa warqad inaa u qortid ku caawin kartid, haddaa qof kale inaa u wacdid ku caawin kartid, duco haddaad ku caawin kartid, waana haddaad ku caawin kartid, si kastoo qofka ibni aadanka ood ku caawin kartid inaad ku caawisid. salaadaha sunnaha la tukanayo, camal kastoo wanaagsan oo la sameeyo, iimaanka ayuu kor u qaadaa. ku dadaal, khayr allaha ku siiye. waxaa kaloo ka mid ah dadka badi laga yaaba inaysan aqoonin ama inaysan hori u maqlin altafakuru fi aayaati illah, inaad banaanka usoo baxdid, geedaha aa fiirisid, cirka aa fiirisid, ilaahidoo kale subxaana allah, subxaana alkhaaliq, axadka abuuray geedahan abuuray intaan sana jiro weynaa, axadka samadan abuuray awood badana, axadka aniga abuuray oo maanta dhan aan neebsanayo weynaa oo kariimsanaa oo awood badana, axadkan ii ogolaaday inaan neebsado oo aan socdo weynaa, axadkan ii ogolaaday inaan mu'min noqdo weynaa oo kariimsana. ku fikir wafii anfusikum afalaa tubsiruun. qofka waxyaabaha iimaanka kuu siyaadinaya waxaa ka mid ah meel kale haddaadoon ku fikirin naftaada inaa ku fikirtid oo tiraahid allahu akbar, ilaahay inta nicmo isii fiiri, suu ii abuuri fiiri, naftaada ku fikir. fikirkaa naftaada ku fikiraysid iimaankaaga ayuu kor u qaadaa. waxaa kaloo ka mid ah istikfaarta inaa badisid, salliga nebiga inaa badisid, adkaarta inaa badisid. walaalayaal wallaahi been idiima sheegaaye, saddexdaas waa saddexda ugu muhiimsan oo qofka ibni aadanka kor u qaado. waa wax fudud waaye. istikfaarta markaa badaysid albaab walba oo khayra kuu furmaayo, caruur wanaagsan oo ilaahay kugu siinaa. faqultu istagfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. marka qofka inuu istikfaarta badiyo, salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu badiyo. nebiga waxaa ka sugnaaday qofka salliga badiyo inuu ilaahay ducadiisa aqbalayo, hamigiisa iyo walwalkiisa iyo murugtiisana inuu ka qaadayo. tasbiixda badi, taxmiida badi. rasuulku wuxuu noo sheegay kalaamkuu ilaahay ugu jeclay inay tahay 4 subxaana allah, alxamdu lilah, walaa ilaha illa allah, allahu akbar. badi khayr allah ku siiya. waxaa kaloo ka mid ah inaa ka qeyb gasho majaalis alcilm, meelaha muxaadarooyinka inaa fariisatid oo tagtid ayaa ka mid ah. dadka badi arrintaas kuma baraarugsana. muxaadarada aad dhegaysanaysid iimaankaagay kor u qaadaysaa, wallaahi ilaahay ku xasuusinaysaa, cadamad rabbika ayay ku xasuusinaysaa. markaa masaajid tagtid oo laga muxaadaraynayo aad dhegaysatid, raxmadaa kugu soo degayso, malaa'igaa ku hareereynayso, magacaagaa kor ilaahay agtiisa laga sheegaa, malaa'igta sheegaysa, inta raxma kugu soo degaysa fiiri. markii intaas kugu soo degto iimaankaaga kor u kacaa, aakharaa lagu xasuusinaa. marka ku dadaal istikfaarta inaad badisid, majaalis alcilm inaad timaadid, muxaadarooyinka inaad dhegaysatid. walaalaha kale usii gudbi muxaadarooyinka, ka faa'iidaysta dheh. iimaanka qofka markuu kor u qaado oo ilaahay qofka u toobad keeno, meel fiican uu tagaa, ducadiisaa helaysaa, ajirkiisaa helaysaa. adiga iska bilaaw, walaalaha kalene lasii wadaag, khayr allah ku siiyo. walaaleel intaas dhan waxaan rabay inaan ku fahamsiiyo ducadan qiimahay leedahay. ducadan kula wadaaga, waana kugu soo celcelinaa, iyadoo qoraalna waa kuu soo raacinahe. fadlan xifdi, ku ducayso. maanta keliya ma ahane, maalin walbana ku ducayso, sujuuda ku ducayso, markaa afuraysad ku ducayso, markaa qunuudsantayd ku ducayso, aadaanka iyo iqaamada dhexdooda ku ducayso. markasta aad ducaysanaysidna ducadan ku ducayso, khayr allah ku siiyo. ducadan 5 mar kugu soo celcelinahay, xifdi. allahumma jadid aliimaana fii qalbii. haddaa adigii faamilkaaga ducaysanaysidna waxaa leedahay allahumma jadid aliimaana fii quluubina, quluubteena. allahumma jadid aliimaana fii qalbii. allahumma jadid aliimaana fii qalbii. allahumma jadid aliimaana في قلبي. وقدم بينتي وادعو سنينا آمين لها إن شاء الله تعالى. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إلهي وأني ولا له إداونا إيمانك قلبينا كعسبونيسي نقو أرزاق طاعة ونعكسا أو نوكاسو دوينيسو إيمانك يننا كرء قاديسو خاتمة ونعكسا نقو دل جنضنه نقول كلمي. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. إلهي سبحانه وتعالى هيدين حفظي ميل ودون كات كجوكتان فضلا كفائدي سدعاء مرول بحف كدعويس أو حفظي ولا لها كلنا وسي قد بيو بخيلها نقين أكتادي استاغن لأن إسلامك وحا كمده قفك إنو لجعل هذا ولالكيسا خيرك أو نفتيسا لجعليهي خير إذين لجعلهي نفت هذا خير لجعله ولا لها كلنا خير لجعله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.